wax badan ka ogow dhagaxanta xameetida gasha. Waa maxay xameetidu? Maxay jirku qabataa? Xameetidu waa kiish yar oo ka laalaada beerka hoostiisa. Waxay keenaysaa wax loo yaqaano bile oo ah dareere cagaar jaalle ah midabkiisu yahay kaas oo caawiya habdhiska dheefshiidka cuntada. Maxaa sababi kara dhagaxanta ku samaysan xameetida? 100% xameetida inuu dhagax galo waxa ku sababa waa dufanka oo ku bata beerkaada, sidaasna uu gudbo kiishka xameetida halkaasna ay ka sameeyaan dhagaxaan nooceedu yahay jaalle. 2. Maadada loo yaqaan perlobin oo ku badata kiishka xameetida. Maadadani waa kiimikaal la soo saaro marka beerku uu burburinayo unugyada cascas ee dhiigga qoobay ee uusan jirka u baahnayn. Waxayna jirka ku badataa maadadani marka uu jiro dhaawac ama xanuun beerka ah ama xanuunada dhiig ku dhaca, taas oo sababaysa inuu beerku uu maadadan oo badan ay tagto xameetida ayna xamili weydo culayska maadadan, dabadeed ay dhagaxaan nooceedu yahay madow ama kafay ay ku sameysmaan kiishka xameetida. Sidoo kale waxaa sababi kara dhagaxaan inay gasho xameetida waa xameetida oo ay dhaafiyaan dareerihii bile oo lagu keedin jiray in badanna ay ku ragaan, sidaasna dhagaxaan ku sameysmaan kiishka xameetida. Cusbada iyo kalooshinta oo jirka ku badato ayaa iyagana keeni kara in dhagaxaan ay galaan xameetida. yaa khatar ugu jira xameetida inay dhagaxaan ka galaan? Dadka burburan, dumarka oo inta badan oo ku dhaco, hooyada uurka leh, dadka beerka ka xanuunsan, dadka ay waalidiintooda xameetida uu ka galay dhagax ayagana ay dhaxli karaan xanuunkan, dadka cuna cuntooyinka baruurta ay ku badan tahay, dadka sida degdeg miisaankooda hoos ugu rida, dumarka qaata daawooyinka uurka ka hortaga ama caadada lagu saxo, dadka ka weyn 60 sano ama ku dhow. Calaamadaha lagu arki karo qofka ay xameetidu ay kaga jiraan dhagaxaan: xanuun qaybta midiga ee caloosha ama beerka hoostiisa ah kaas oo siyaadiya marka qofku uu cuno cunto dufanku ama baruurtu ay ku badan tahay, labo iyo mantag, kaadida oo madow noqota, saxarada oo iyana dhabooda camal u ekaata, calool xanuun saayid ah, dibiro ama naqas caloosha buuxiya, shuban. Dadka qayb ka mid ah ayaga oo ay dhagaxani kaga jiraan ayay haddana aysan dareemin wax xanuun ah ama calaamad muujinaysa, waxaana si kadis ah loogu ogaadaa dadkaas dhagaxaanta ay kaga jiraan xameetida mar raajo ama baaritaan kale uu maray cudur kale. Sidee looga hortagi karaa in xameetidu ay galaan dhagaxaan? Maxaase laga rabaa qofka qalliin loo sameeyay inuu sameeyo? Miisaankaada yuusan noqon mid aad u badan, hal mar si degdeg ah ha u ridin ama hoos ha ugu dhigin miisaankaada. Ka dheerow inaad cunto baruurta badan, jimicsi badan samee, cuntooyin dahaarka sare leh sida digirta, haruurka, galleyda, biyo badan cab maalintii ilaa 8 galaas.